waxaa maanta magaalada Oodweyne lagu soo gabagabeeyay tabar muddo 2 cisho uga socday hawlwadeennada wasaaradda xanaanada xoolaha isla markaana lagu gorfeynayay sidii loo midayn lahaa ama kor loogu qaadi lahaa manhajka daryeelka caafimaadka xoolaha waxaana barnaamijkan oo ay fulinaysay wasaaradda xanaanada xoolaha goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha isuduwayaasha xanaanada xoolaha ee gobolada Daadmareer iyo Togdheer agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Axmed warsame oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada barnaamijkan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada hawshaas oo kaga hadlaynay sidii loo midayn lahaa oo curriculum ama manhaj midaysan loo sameyn lahaa oo loo soo saari lahaa sidaana taasuna u baahan tahay in horta la dhex galo mujtamacyada kala duwana oo la ogaado inta tababar qabta iyo inta aan weli tababar la siinin tuulooyinka tababarka la siiyay kuwaan la simin tanoo kalena ay soconaysa halkan oo kaliya laga qaban doono balgubadana laga qaban doono warasaab ku-xigeenka gobolka Daadmareer Faarax Cabdullaahi Xasan oo gabagabadii madashan soo afmeeray ayaa ku dheeraaday tababarkan iyo muhiimadda uu leeyahay isla markaana hawlwadeennada xanaanada xoolaha ku dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii wadaan Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne